ciidamada booliska ee gobolka Togdheer ayaa habeenadii u dambeeyay waday howlgal ballaaran oo lagu sugayo nabadgelyada gobolka Togdheer sidoo kalena lagaga hortagayo mukhaadaraadka gudaha magaalada Burco suuqyada waaweyn ayaa waxa taagnaa ciidamada kala duwan ee booliska iyo ilaalada wadooyinka oo baadhaya gaadiidka iyo rakaabka la socda howlgalkan ayaa waxa horkacayay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer Maxamed Faarax Nuur taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer gaashaan sare Maxamed Faarax Nuur ayaa ka warbixiyay howlgalkan socda taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer Maxamed Faarax Nuur waxa kale oo uu sheegay in guud ahaanba ay si weyn u sugi doonaan ammaanka iyo nabadgelyada magaalada Burco iyo gobolka Togdheer hawshan aanu wadno kulay waa shaqo maalmeedkaygu ma ka mid tahay baadhisan gobolada baadhayno wax dhibo lagu soo kordhay ma jiraan laakiinse waa ka hortag waxyaabaha ay wadaan amba maartay meelaha jaarkeena hawlihii wax ka jiraan dareenno qabno ayaanu u soo xoojinaynaa wax saado imika aan dareensanahay ma jiro laakiinse shaqadeedu baanu libilaabnay wayna socon doontaa wax dhibaato jiraan ma jiraan ilaa haddana wax problem iyo waxaan la kulay ma jirto ilaahay waxaan ka rajaynaynaa nabadgelyada aynu hayno inay noo sii libilaabanto marka dadka ay weydiinayo leh war maxaa dhacay wax dhacay ma jiraan waa nabad waa bashbash iyo barwaaqo waxa weeye shaqadii booliiska uun baanu libilaabnay marka waxaan leeyahay jaamkuna uu naga yaraan baashan la yiraahdo muxuu ahaa gaari baashan tigta baashaas ayaa Burco ka faarisay inama yar baa wada waxaad moodaa sidii baaskiilka iyo wadada dhexdeed ku wareegayaan marka waxaan leenahay qolada tigaha wata hadday ka joojin waayaan qaabka ay u socdaan iyo systemkan zaidka ay wadaan talaabaynu ka qaadi doonaa insha taliyaha ciidanka waxa uu ugu baaqay bulshada gobolka Togdheer inay gacan weysiyaan ciidamada kala duwan ee ku howlan howlgalkaasi bulshada waxaan u direeyaa Burco runtii aad iyo aad bay nabad u tahay aanu waxaan soo maray 3 jeer waa markii saddexaad waqti ay ka nabadgelyo wanaagsan tahay oo soo maray marka waxaan leeyahay ciidanka booliska la shaqeeya dadweynaha waxaan ka codsanaynaa si aad ula shaqeyn jirteen odayaasha uqaasha taliyaha cusub ee ciidanka booliska ee gobolka Togdheer gaashaan sare Maxamed Faarax Nuur ayaa laba jibaaray tan iyo intii uu xilka la wareegay howlgallada lagu sugayo ammaanka iyo nabadgelyada gobolka Togdheer kuwaas oo ciidamada kala duwan ay si weyn uga shaqeynayaan Absa Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.